wafdii uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardiid ee hawlaha shaqo u joogay gobolka Sanaag oo weelinayo maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa booqasho ku tagay deegaanka Muqdisho iyo Xamaas ee degmada Ceergaabo waxaana ujeedada wafdan socodkoodu salka ku hayay sidii caalamka ugu bandhigi lahaayeen taariikhda iyo kheyraadka deegaankaasi ku duugan ugu horeyna waxa halkaasi wafdiga wasiirka uga warbixiyay taariikhda faca weyn ee deegaankaasi qaar kamid ah odayaasha deegaankaasi ujeedadu waxay ahayd taariikhdii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Sayid Maxamed Cabdulla Xasan wuxuu degay meeshan hilaadii 1917 waa meeshii u horeysay Afrika ee diyaarado duqeeyaan waa meeshii uu ku dhintay sayidka adeerkii Caamir iyo xaaskiisii Maryam diyaaradu waa halkay ku garaacday saddex habeen wuxuu ku jiray godka lugta saylahayd waa la beeri jiray raashin baa laga beeri jiray marka ay degeen geedka alaalada la yiraahdo bay intay rujiyaan jirad cado badhiya bay leedahay taas la cuni jiray waxay oran jireen alaala nin cunay abaar ma arkay ee aroora oo uurka buuxsada ilaa ay markii dambe ka beerteen raashin muxuu ahaa galay iyo haruur iyo waxaankaas ka beerteen sida la sheegay 1900 iyo 15 ilaa 17 buu ka tagay meesha in Cabdulla Xasan markii diyaaradu ku duqeeyeen sidoo kalena waxa taariikhda Sayid Cabdulla Maxamed Xasan oo deganaan jiray deegaanka Muqdisho ka warbixiyay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo xogayaha gobolka Sanaag Sharmaarka Siciid Axmed iyo mas'uuliyiin kale meeshana wala nuga sheekaynay waa midhishi waa meeshii deegaanka Cabdulla Xasan guriyo badan buu ku lahaa waa meeshii Ingiriisku ku bamgareeyay waa meeshii xaaskiisu ku dhintay iyo adeerkii Caamir Xagool waa meel taariikhiya waa meeshii Rafiijiya waa meeshii markii dambe dawladii maxay si albarre ururkii asnan uu fadhiyay ee ahaa xarunta gobolka Sanaag anigoo wafdida qaybka haddana waxaan mar labaad deegaanka faca weyn ee Muqdisho oo ah dhulkii taariikhiga ahaa ee deganaa Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ku soo dhaweynayna wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta Cismaan Cabdullaahi Saxardiid iyo wafdidan uu horkacayo waxaanuna sidoo kale uga mahad celinaynaa deegaanka reer Muqdisho sidii milgaha lahayd maamuuska lahayd horta aniga waa markii ugu horeysay runtii ee dhulkan imaado Ceergaabo halkan Muqdisho aan imaado markii hore de fikrad sidaa kama haysan ma ogeen qalcadda inay kamid ahayd qalcadihii ugu waaweynaa Muqdisho in Cabdulla Xasan iyo dagaaladii Ingiriiska dhexmaray mana filaynin in dhul intaa leh oo durdura oo beer leh aan ku arko aniga reer galbeed baan ahay marka la igu bariga Ceergaabo dhulka loodiyo beeraha lagu dhaqdaa waan qosli jiray wayna iska hadlayaan ayaan mooyi jiray laakiin ma ayaan halkan marka aan waxaan ku xasuustaa maanta imka way saddex labadii jeer hore in midba xilli barwaaqo dalka oo dhamiyay bay ahayd iyaduna barwaaqo si cajiyo maanta laakiin dhulku maadaama wadanku abaar yahay abaartu saameyn bay ku yeelatay dadka iyo dunyadaba laakiin waxaan runtii aan dadka xasuusin lahaa wax qurux badan ama wanaagsan markaad aragto waa inaad ku xasuusato weynida Ilaahay waxaad aqoon gudbin kartaa inta aad aqoon dalkaaga u leedahay magacayga waxaan Maxamed Ali director baa fi documentary-ga waxaan joognaa Muqdisho meel qurux badan meel dad fiican wasiirka warfaafinta Soomaaliland Mastar Cadaani ayaa dhankiisa ka warbixiyay taariikhda iyo kheyraadka deegaanka Muqdisho iyo Xamaas iyo faa'iidada laga helayo in caalamka loo bandhigo waxaanu joognaa waa Muqdisho dadweynaha Muqdisho waxaanu niman wax weeyaan eegna taariikhda Muqdisho ay leedahay haday xaq beeraad tahay haday tahay xagga Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waa xaruntiisii labaad ee uu deganaa iyo xagga beeraha waana meel SNMCna waa tii deganeed markii maxaan ku raadayay berigii halgankii marka waa meel taariikhi iyo dhinaca beeraha aanu soconay waa qaybtii ugu horeysay ee gobolka Sanaag ee maxaan ku raadayay aan filimada ka qaadnay marka wadada laga bilaabo haddana dayaxaan u soconaa ka taraysa dhaqaalaha gobolka kor buu qaaday iyo dhulkan aanu joogno labadaba markaan ummadda adduunweynaha ku soo jeedino iyo indhaha ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland inta ku soo jeedino dhanka kale wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani waana wax ka weydiinay muddo kordhinta guurtida uu sameeyay doorashooyinka madaxweynaha golayaasha wakiilada iyo sidoo kale golayaasha deegaanka Soomaaliland ayaa waxa uu yiri waxaan la laakiin muddo kordhinta dawladdu muddo kordhinta xaq waxa uu leh oo dastuurku uu siiyay waa guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan filayaa waxba isma dheera wixii saddexda ay ku heshiiyeen oo ahayd markii horeba bisha Oktoobar 10keeda marka taas waxaan u maleynayaa inay dul saareen oo wax dhib aanay ku jirin waxaan runtu ay tahay golaha guurtida iyo golaha deegaanka iyo golaha wakiiladuba waqti badan bay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kursiyo badan bay ayaa ku dhacay maanta haday sidaa garteen waxaan taageersanay waxa guurtu tiraahdo barkhad Maxamuud Gedi Bulsha TV magaalada Ceergaabo